ودائر لوالتي قلبي جبنا كقادي قور قصب أها أو لغو درينين كدأوين لحسنا كهر هرسي يهردوا منا مجرو لوقت أي كحرنتا هبيني مالين dhulka ayay sidan u qaraacaysaa iyada oo dib u soo xasuusanayso xanuunka walwalka iyo naxdinta ay ka qaaday habeenkii koobaad ee ninka da'weyn ayna xamili karin guriga loogu xiray waxay ku soo barbaartay miyi da'deeduna aad ayay u yartahay ma iga rumaysanaysaa sidan waxay ku dhashay 2 cunug oo mid dhimatay midna aabaheed ka haystay tacadiyada noocan oo kala waa kuwa ka dhaca wadankeena kuwaasi oo mugdi galiyay nolosha gabdho badan oo barbaar ahaa waana laga baaqsan karay waxa liidata fahanka bulshada iyo wacyigelinta oo aan gaarin meelaha qaar gabdhuhuna waxay miciin badaan inay ilmeeyaan marka uu xaalku sida noqdo ninkii kolley 2 sano ka sokow ma arkay mana meel dheerna ma jiro inuu qabinaan u qabaa laakiin warqadeeda iyo masoo dhiibin gabdhaha yaryar inaan maaragtay aan yaraanta lagu bixinin oo sidaanay ugu dhaxday ay ku dhicin gabdhaha yaraanta lagu dhisay inay uurka ay xamili karin foosha ay xamili karin ninka ay xamili karin تعدي لو جيسنا هوينك Soomaaliyeed waa mid sii kordhaya sanadba sanadka ka dambayso guurka qasabka ah oo aan carruurta lagu tixgelin da'da ay jiraan waxa uu kamid yahay waxyaabaha mahadooyinka ku reeba qulubta gabdho badan oo Soomaaliyeed fadlan taageer si aan u caawino dhibanayaal badan oo u baahan garab istaag kaliya waxaan u baahanahay gacanta dadkeena Soomaaliyeed si aan u gacan siino kuweena liita waxaad igala soo xiriiri kartaa lambarka profilka TikTok-gayga saaran haddii aan yeeriyana waa +2526 17990303 qaybta WhatsApp-kana waa uu furan yahay jooji tacadiga haweenka